shirweynaha labaad ee Tawfiiq 2 oo maalmihii ugu dambeeyay mid ka mid ah beelaha dega gobolka Saraar uga socday magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar ayaa maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay madasha shirkani waxaa ka soo qayb galay salaadiin cuqaal waxgarad maamulka gobolka ka degmada Caynab mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale iyagoo dhamaantoodba mas'uuliyiintaasi si isku mid ah u soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkaasi ugu horeynba shirkaasi qodobadii ka soo baxay waxaa halkaasi ka akhriyay Sheekh Aadan Axmed إن شاء الله تعالى وحنا لكن كآخري دونا قضبدي كسب حي شركي توفيق 2 باشا علمي بالله أي وفد ذي مدلة صفي عن أيال يسوع أفكارتي ويا جمهورية الصومالي لأنه شيء قام شركي توفيق 2 أنا جوا بيرو أنت علمي بالله وحانو كسو صارني shirweynaha yagii aanu ku qabanay magaalo madaxda gobolka Saraar ee Caynab qodobadan hoos ku qoran kow waxay beeshu ku heshiisay in ay shariicada islaamka ka xukun qaadato qodobka labaad waxay beeshu taageero buuxda oo naf iyo maalba leh la garab taagan tahay jamhuuriyadda Somaliland iyo jiritaankeeda waxay beeshu ku heshiisay in ay nabadgeliyo iyo walaaltinimo kula noolaato shacabka reer Somaliland gaar ahaan kuwa daris wadaagta ay yihiin qodobka afraad waxa ay beeshu ku heshiisay in ay ka shaqayso horumarinta gobolka Saraar dhinacyadiisa kala duwan qodobka shanaad waxay beeshu ku heshiisay in ay raadsato doonato wixii xaquuq ah ee ka maqan kuna doonto si nabadgelyo iyo silmi ah gaar ahaan xuquuqda ay ku leedahay xukuumadda Somaliland hada badal kala ma jiro waa la bari shirku qaamiyay qadar ay ugu xalsan shirku inoo furaya waxaan soo dhaweynayaa qodobada ay shirka qiimaha leh ku soo qaadeen beesha Muuse cilmi baalle maadaama aanu nahay walaaladood waan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shirkani wuxuu ahaa la bari waana tawfiiq 2 sidii uu sheegay sheekhi hore waxaanu fadhinay 8 maalmood reerku danihiisii hoose ee dhaqanka ee dadkuba ka shiri jiray ergadan quruxda badan ee ka soo qayb gashay marka waanu qaadanay wixii aad soo jeediseen waanu idin la qaadanay asaan cilmi baalle idina inaad kaga dayataan sidaa iyo si lamid ah inaad kaga dayataan ayaan idinka codsanaynaa haddaanu nahay madax dhaqameedkii ergada timi waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee beeshan cilmi baalle ay soo abaabushay shirkeeda waxaan leedahay qolada tan cilmi baalle ee sharafta mudan ee halkan ku la bariday alla barigu waa maqbuula ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay maamulka gobolka ka degmada Caynab iyagoona mas'uuliyiintaasi ka marxaati kacay inay beeshani tahay beelaha waaweyn ee dega gobolka Saraar isla markaasina ka taliya amniga iyo horumarka gobolka qodobka nabadgelyada ka hadlaya waxa aynu shirka ku qabsanaynaa waa nabadgelyo amniga aan ilaashano amnigeena aan ilaashano shirkani waa shir aad iyo aad u qurux badan oo beeshaasi dhigatay aad iyo aad baan shirkan u baariganaa waxaan halkan uga mahad celinayaa kana salaamayaa beesha ballaaran ee runtii shirkan muddada badan socday sida qiimaha iyo milgaha leh runtii una bilaabay una soo gabagabeeyey ahaantii shirkan qodobada ka soo baxay haddii ay noqon lahayd ta gudaha iyo haddii ay noqon lahayd taa dibadda labadaba runtii waanu soo dhaweynaynaa وعلي أدري علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة عينبا.